السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنغو كسي سعونا تاريخ دا ريجيلا بتل ما أنت وحن كهالينا هالكو كسو غالي تاريخ دا جيبوتي ودايقا اللورانيي جيلا أحمد عيناشي والله يقانو جيلا بتل ودايقا اللي يراهدو جيلا بتل ضد مجعيسة صحدو طهاي جيلا أحمد عيناشي إسماعيل عمر أوغو kas galay taariikhda Djibouti abaab madoow ka soo galay laakiin ciyaalkiisii iyo tafirtiisii oo Ismaaciil mar horeeyay waxay isku dayeen inay u waxayaan taariikh gacan ku rimisa sidii Sheekh Muuse oo kale oo falsiya odagan geela betel wuxuu ka mid ahaa hormo reerka bahfur labada la yiraahdo maasanka oo ay shacarugtoodu ahayd kuna qaabilsanaa jaajuusnimada gumeysiyadii geeska Afrika ka jiray kii Ingiriiska kii Menelik ee Amxaarada iyo kii Faransiiska raggaasi waxay ku shaqeynayeen jaajuusnimo waxayna ka shaqeynayeen reerka Ciise burburkooda iyo bacooda iyo dhabtooda ka shaqeynayeen waanagii hore uga soo sheekeynay Sheekh Muuse doorku ka soo ciyaaray Xaaji Lacag doorku ka soo ciyaaray imikana waxaan baan dhigaynaa hal doorku ka soo galay dhibta iyo burburka Ciisaha maxay geela betel wuxuu kamid ahaa raggii jaajuusiinta ay u shaqeynayay gumeysiga oo ay shacab deganaa haddaba sidee uu wax u dhaceen iyo sidee arrimuhu noqdeen waxaan niyeenaa taariikhdu markay ahayd 1934 hadda 1934 bishii afraad 18 ayay isku raaceen gumeysigii Faransiiska Djibouti haystay gumeysigii Ingiriiska Somaliland haystay iyo Menelik oo marka awoodiisa ay ku koobnayd Nazareed waxa ka sareeya ayaa isku raacay inay xuduud sameystaan saddexda maamul inay xuduud sameystaan isku raaceen xagga Ingiriiska waxa ka socday ninkii la oranayay Lieutenant Colonel Clifford la oranayay bay soo dirsadeen dawladda Ingiriiska uu matalayay xagga Faransiiska waxa uu matalayay Captain Pierre Fargas ninka la oranayay maamulkii Menelikna waxa uu matalayay Tasami Bantin la oranayo la taliya u ahaa Menelik yaa uu matalayay marka waxa isku raaceen inay xuduud sameeyaan markaas ayna xuduudaha saddexda qaybood ugu dhaxayn doona waxa loo yeeray oo qandaraaska la siiyay nin dalka Jarmalka u dhashay oo ku takhasusay jahista xuduudaha oo ka soo qayb galay sidii Tanzania xuduudaha loogu sameyn lahaa qandaraaska la siiyay markay maqleen beesha Ciise waliba ganduhu ay maqleen arrintaasi shir baa laga fariistay gandu ka fariisteen galbeedse meesha la yiraahdo ee durdhab agteeda ka fariisteen gandaha Ciise waxayna qaraar ku qaateen in la dilo ninka Jarmalka iyagoo diidan in dhulkooda xuduud la mariyo la kala googooyo deegaanka Ciisaha ugana digay maxay yahay Faransiiska arrintaasi waxay ku dhawaaqeen ganduhu in la dilo ninkaasi xuduudaha sameynaya ee Jarmalka markaas waxay arrinta u xil saareen oo iska soo xuleen nin dhalinyar oo xagga dagaalka ku fiican oo Umar Bahdoon la oranayay oo ka soo jeeda beesha reerka Horroone ee beesha Ciise ka soo jeeda ayaa loo xil saaray ninkaasi wuxuu ku guuleystay inuu dilo ninkii 1936 markii uu arrinta shaqada la bilaabayay ee ninka Jarmalku ka soo dhacay xeebaha Djibouti uu ninkaasi ku dilay jiri meesha la yiraahdo ku dilay ninkii Jarmalka ee xuduudaha sameynayay walka nafta kaga jaray xuduudii la sameynayay halka ay ku joogsatay oo ay ku hirgali weyday marka maxaa dhacay Faransiisku raggii jaajuusiinta u shaqeynayay markiiba shaqo galiyeen ay ka yiraahdeen soo hela raggii ka dambeeyay arrinta ee dilay ninka aqoon-yahanka sameynaya xuduudaha ee Jarmalka soo helay cidii dishay markaaba jaajuusiinteedii ay shacab fadhiyay baa loo xil saaray si waliba odaga geela Axmed Caynaashe oo geela betel loo yaqaan loo xil saaray laakiin geela betel ku guuleysan waa ninkii inuu soo qabto ninkii uu sheego meel ku sheego ninkii Umar Bahdoon Allah u naxariistay uu cararay galbeed biska galay tolkii buu dhaxgalay Ciise dibna looma helin marka sanad ka soo wareegeen 1937 markay taariikhdu ahayd ninkii Umar Bahdoon ee Horroone ee dilay ninkii xuduudaha sameynaya Jarmalka wuxuu yiri waa lagu iloobay wuxuu iska soo socday cidba warka ma haysu yiri uu soo socday wuxuu yimid magaalada Holhol la yiraahdo Djibouti ku taal uu yimiday qayb reero ka degan halkaas uu yimiday haddaba halkaasi waxa ogaaday inuu joogo islaan la oran jiray ciga good Umar Caynaashe la oranayay ciga good Umar Caynaashe baa la oranayay islaantaasi baafuur labay ahayd ilmaadeer bay ahaayeen geela betel islaanta waxa qabay nin macallin weyne ah oo tareenka ka shaqeynaya qabay iyadna moofaday ku dubi jirtay ku iibin jirtay Holhol islaantiiba ogaatay inuu yimiday Umar Bahdoon Holhol yimiday ogaatay markiiba fariin baa u dirtay geela betel ama geela Axmed Caynaashe oo tiraninkii aad raadinaysay halkan buu joogay soo orod haddaba markuu geele Axmed Caynaashe oo geele betel loo yaqaan uu helay fariintii ciga good Umar Caynaashe oo inaadeertii iyo orod buu ku yimid Djibouti isagoo la socda soona raacay tareenkii xertii Sheekh Muuse ee wareegaysay warka la wareegaysay la socda
kuna soo galay sidaa Djibouti holhol buu ka soo dhaadhacay uu hubiyey inuu ninka meesha jooga ee gabadhu ay sheegayso ciga ay sheegayso uu yahay Cumar Bahdoon ninkii horroone ee dilay ninkii Jarmalka ee xuduudda qeexay inuu yahay ninkii dilay markuu hubiyey ayuu urdu u tagay iyo orday odayga Geele Betel ama Geele Axmed Caynaashe wuxuu tagay gumaysigii gaalkii meesha joogay ninkii haystay halka holhol gaalkii buu tagay ee Faransiiska ahaa wuxuuna u sheegay inuu Cumar Bahdoon joogo holhol markaas buu gumaysigii askartii diyaarsaday weerarna lagu qaaday aqalkii uu deganaa Cumar Bahdoon wuxuu isku dayay inuu ka cararo oo meeshaas uu baxsado duleedka holhol baa lagu gaadhay laguna dilay Cumar Bahdoon halkaabuna ku dhintay markaas sidaad ogtihiin dadka reer Djibouti waxa weeyaan Geele Betel waa jaajuus Faransiiska u shaqaynayay danta dadka reer Djibouti iyo Ciisahana ka hor yimiday fududeeyena inaa maanta dhulkii Ciisaha la kala googooyo ragii fududeeyay buu kamid yahay hor waxay ahaayeen koox dhan oo Baafur laba iyo reeci gaal u badnaa oo iyo waxoogaa Badraxaana oo isku urursaday Cayshaca uu kamid yahay Caynaashe ninkii Ismaaciilta ka hortagay ee Ciisaha ku diray Amxaarada kana dambeeyena dilkii iyo xasuuqii Cayshaca waxa kamid ah Xaaji Lacagdoon oo ahaa jaajuuskii caawiyey inay Amxaaradu soo degto dhulka Ciisaha ee galbeedka imka loo yaqaan Itoobiya ka tirsan waxa kamid ahaa Geele Betel oo isaguna ninkii xuduudaha ninka dilay horoone Cumar Bahdoon u jaajuusay gumaysigu ay dileen arin kale iyo taariikh dambe ayaa noo xigi doonta iyo mar kale waad salaamantiin dadku